sideedaad oo ay dad badan inaga soo codsadeen inaan ka soo shaqeyno equation iskan aan ka shaqeyn doonaa insha Allah adigina inaad naga faa'iido doontid ayaan u maleynayaa insha Allah ayaan rajeynayaa anigoo ah ustaad Hussein Maxamed Abdiraxmaan ayaan idinla wadaagi doonaa insha Allah equation iskan ayaan ka shaqeyn doonaa insha Allah find waxaan yiri saddex equation ayaa siiyay waxaan yiri find raadi the value qiimaha of x qiimaha x ayaan soo raadin doonaa insha Allah equation ka koowaad aan ka bilaabo waa saddex equation ka koowaad aan ka bilaabo koowaad wuxuu leeyahay 2x plus 4 equal 8 sidee loogu shaqeyn karaa laba qaab ayaan ugu shaqeynaynaa labada qaabka koowaad aan ugu shaqeyno waxaan leenahay 2x waa la soo celinaa plus 4 taa waxaa cagsigeed ah minus 4 oo cagsigeed ah ayaan keensanaynaa is equal 8 minus 4 ayaa dhankan dhinac walba waxaan ku dhinac walba equation waxaan ku darsanaynaa minus 4 inta okay marka equationska dhinac walba isla egta waxaa ku daraysaa tira cagsi ah hadda 4 aan tahay 4 cagsigeeda dhinac walba equation ku darsanaa equal ku wixii inta jirno minus 4 ku daraa wixii xagga ka ana plus 4 kan cagsigeeda ayaan ku daraa oo minus 4 ah okay 2x minus 4 plus 4 waa isla baxeen waa isku calaamadooda ayaa kala duwan saas darteed waa isla baxeen minus plus isla bixi 4 isla bixi equal waxay la mid tahay 8 iyo 4 way kala go'ayaan haddii ay kala go'aan maxaa noo soo harayo 4 ay noo soo harayso waxaan leenahay marka divide by 2 2 iyo 2 waa isla baxeen x ayaa halkaas nooga soo baxday is equal 4 haddii laba loo qaybiyana waa 2 the value of x is 2 qiimaha x waa aan soo saarnay aan ku laabano qaabka labaad aan ugu shaqeyno qaabka labaad ee aan ugu shaqeyn karno waxaa waaye inaan dhahno 2x inaan soo celino plus 4 is equal 8 ay ahayd sooma marka isla egta waxaan leenahay 2x ayaan soo ceshanaynaa hadday dhinac walba waxaan ku daraynay plus 4 cagsigeeda oo ah minus 4 ayaa dhinac walba ku darsanayna sooma tookadaan lagsaas ma samaynayno 2x is equal ayaan tana soo hormarinayna tanna waa iska dhaafaynaa waa la qaada tan waa la qaadana waa la wareejinaa equal 8 ayaan leenahay tan maadaama ay tahay plus 4 haddii booskan ay ka tagto ay booskan tagto waxay noqonaysaa minus 4 2x ayaan soo ceshanaynaa equal waxay la mid tahay 8 oo laga jaray 4 oo micnaheedu yahay 4 2 divided by 2 waa isla baxeen 4 divided by 2 halkan x ayaa iga soo baxay equal 4 divided by 2 equal waa 2 labada solution ee x waa iga haystaan labada wada aan u maray inaad ka faa'iidi doontaan ayaan rajeynaa insha Allah bal aan u gudubno equationka labaad oo ah 4x equationka labaad wuxuu leeyahay 4x plus 8 equal 12 asagan sidoo kale waxaan leenahay labadii qaba ayaan ugu shaqeynaynaa 4x plus 8 dhinac walba waxaan ku darsan jirnay tirada meesha taal cagsigeeda plus 8 cagsigeeda meeqo maxaa waaye minus 8 equal 12 minus 8 minus 8 dhinac walba waa lagu daraa equationka okay 4x plus iyo minus waa ay isla baxeen plus 8 minus 8 waa isla baxeen equal 12 minus 8 4x equal waxay la mid tahay 12 haddii 8 laga gooyo waa imisa waa 4 u qaybi labadan waa isla baxeen x ay halkaas nooga soo baxay 4 haddii 4 loo qaybin waa 1 the value of x is equal 1 ayuu noqday aan ugu shaqeyno wadada labaad insha Allah ayaan aan ku fiirino wadada labaad aan ugu shaqeynayno waxaa waaye wax cagsi ah lama keenayo tookadaan waxaan leenahay 4x equal ayaan soo hormarsanay equal 2 tan waa wareejinaynaa markay xaggaas tagayso calaamadda waxaan ogeyn tirada markii halkan laga wareejinayo minuska gadaashiisa equalka gadaashiisa la geynayo inuu calaamadda inay isbedelaysay hadda plus y maxay isku bedeli doontaa minus 8 ayaan leenahay 4x equal 12 minus 8 waa imisa waa 4 divided by 4 divided by 4 labadan waa isgoosteen x equal 1 4 haddii 4 loo qaybin waa 1 labadii qaab halkaas ayaan ugu shaqeeyay equationka saddexaad bal adigu isku soo day daawadaha ah find the value of x qiimaha x soo saar labadan aniga ayaa ka shaqeeyay bal adna isku soo day equationka labaad wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu